السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaantiin guulaystayaal waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin. waa taxanaheennii aynu kaga hadlaynay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waana qaybtii 12aad. waxaan hadduu Ilaah yidhaahdo qaadaa dhigi doonaa suugaanta Soomaaliyeed. inta qaybood ay u kala baxdo iyo mid walba waxay ka hadlasho ama loo yaqaano. kusoo dhawaada guulaystayaal. intaynaan suugaanta u guda gelin, Soomaalidu hadalka waxay u qaybisaa laba. waxayna yidhaahdaan hadalku waa tix ama tiraab. tiraab waa af Soomaaliga hadda aan ku hadlahayo. tixduna waa wax la tiriyey ama la taxay weeye. Carabigana waxaa loo yaqaanaa hadalku inuu kala baxo nadmi iyo nathri. waa isku mid uun haddaan dhahno hadalku wuxuu kala baxaa tix iyo tiraab, iyo haddaan dhahno hadalku wuxuu kala baxaa nadmi iyo nathri. waa isku mid uun, midna carabi baynu ku sheegnay uun, midna Soomaali. haddaba haddaynu nidhi hadalku wuxuu kala baxayaa tix ama tiraab. tiraab maxay tahay? tiraabu waa af Soomaali. nooci dooniba ha loogu sheekeeyey, waa un af Soomaali. kan hadda aan ku hadlahayo ama ku kaloo ka duwan iyo af Soomaaliga lagu hadlayo oo dhan baa la dhahaa maaragtay tiraab. tixduna waa wax la taxo oo la isku dubarido. welibana tix markii la leeyahay waa inuu noqdo dee wax la fahmi karo. dilqaafyada iyo maaragtay qalqallooc iyo waxyaalahan laga ilaaliyo, wax la fahmi karo oo tix inuu yahay ama gabay yahay ama waxuun loo fahmi karo inuu noqdo la doonaya. haddaba tixdu waxaan la taxayo ma leedahay qaybo iyaduna? haa, qaybay leedahay. waxaa ugu horeeya gabay. gabayga ugu horeeya wax la taxo waxaana la yidhaahdaa waa suugaanta aabaheed baa la dhahaa. waxaa ku xiga geeraar, waynu kusoo noqon doonaa. waxaa ku xiga geeraar. waxaa saddex ah jiifto. lambar 4 waa buraanbur. lambar 5 waa hees. lambar 6 waa masafo. lambar 7 oo ka u dambeeyey ahna waa saar. intaaba waxa weeye waa tix. yacni waxbaa la taxayaa wey. dee gabayga u horeeyo dee waa la tixi. gabay weydun garanaysaan. waxaa ku xiga geeraar. isaga si waa la taxayaa. aan gabay ka soo qaadano. hadduu qofku leeyahay allaa mahadle, roob baa masnale, mulay caleen baale, geel baa maquuniya, mag iyo maalis iyo goolle, adhi baa muraadsile, loobaa subag macaankiile, midab qurux codkoo loo madliya, muunad gabadh baale, hadal murti af meel lagu mariya, magacna wiilba. waa gabay. kaasi waa gabay. kaynoogu xiga ee labaad waa geeraar. geeraarku gabayga wuu ka fudud yahay oo uma baahna dayday badan iyo ilaalin badanba uma baahna. aynu tusaale soo qaadano. waa ku lahaa inta aanan guda gelin guud mar baan samaynaye ila gara ujeedada. nin gabyaa wuxuu yidhi garmadooba ficil galay iyo geesi gabadh la fiidkacay iyo arku guro dheera. nin gabyaa wuxuu yidhi geeda naaga diirteen, guryo dayrta laga baxay iyo arku waa golacadyahay. geeda naaga diirteen iyo guri dayrta laga baxay iyo gori waa golacadyahay. waxaan uga goleeyahay arrintii guracantiyo garta ina saweynaa go-aankeeda fulin jiray. waa geeraarkaasina. midda saddexaad waa jiifto. jiiftaduna waxay ka mid tahay suugaanta ama tixda la tiriyo.
haddaynu wax ka tilmaano jiifsada inta badan waxaa la qaadaa aroosyada. xilliga aroosyadu ay jiraan ayaa la qaadaa, waxaana la odhan jiray hoba layowede hoba layowed layede hoba layey hoba layey hobe hoba layowe gabaryahay la guursaday adanku golleeyaye hoba layede hoba layeye soo soco socodooy ileen waan ku sugayaye hoba layowede hoba layowe sirqiyey tallaabada inuu socodku nafeeyey hoba layowede hoba layowe sii jeesa soo jeedso waa lagu shirabayaye hoba layowede hoba layowe sinta wiilka lagu qaadayo simaan noo soo duuba layowede hoba layowe dabka ololi dahana yar qabo daawashanaye hoba qaabkaasaa loo qaadi jiray. dee arooskii oo intii la fadhiyo gurigii hortiisii ardaa weyn oo lagu dhisay dadku ay fadhiyaan ayaa gabadha intii lasoo kiciyo arsoda ayaa loo qaadi jiray maartay tixdan jiiftada ah. mid saddexaad wuxuu ahaa buraanbur, sugaanta saddexaad ama tixda saddexaad inaan tix ka dhigno waxa weeye buraanbur. dee buraanbur qof walba waa uu garanayaayo inta badan dumarka ayuu khaas u ahaa, welina uu yahay oo dee dumar unbaa qaada. qaybta afraad aan dhehe qaybta shanaad ama tixda shanaadi waxa weeyaan heestu way fara badan tahay. haddii tugeel noqon lahayd waxaa loo kala qaadi un kolley hees hawleed iyo hees dhaqameed. hees hawleed waa tan dee xoolaha la waraabinayo ama geela loogu heesayo ama dee hees shaqo wey, hawl baa lagu hayaa. hees dhaqameedkana waa heesahan dee caadiga ah ama maaragtay golaha laga heeso ama waxa lagu duubo heesaha la qaado wey. masaf baa ku xiga oo tixda lixaad waa masaf. masafada hadda baryahan iyo intaan hadda inagu u aqliyaysanay iyadoo la qaadaya maynan arag, laakiin waxaa lagu cabiri jiray ama lagu tilmaami jiray dhacdooyin gaar ah oo dee soo maray dadka amaba taagan ayaa masafada lagu cabiraa. tixdan ugu dambeysa waa saar. saarku waxa weeye wuxuu ka mid yahay tixda iyo suugaanta la qaado ayuu ka mid yahay. qaabka loo qaadayana waa idin aragteenoo qaab u yareg dhaantada oo kale ayaa loo tumaa. waxaan usoo gudubno qaybtii labaad ee hadalka. ila markii hore waxaanu soo sheegnay oo inu ka hadalay hadalku inuu tix iyo tiraab yahay. tixdii waan ka soo hadalay, tiraabtii aanu gudubno. tiraabtu way noocyo badan tahay. kow maahmaahyo, maahmaahyada waa tiraab. laba sheekooyin, sheekooyinku waa tiraab, tixlan mehe. saddex hal xidhaale, haddaad doonayso inaad barato maaragtay tiraab waxaa ka mid ah hal xidhaale. mid walbana tusaale yar buu inaga siin doonaa doaleedno. maahmaahdu waxay leedahay waatii u horreysay ama waxay hadal ku samaysaa, way soo koobtaa hadal kooban oo macno weyn laga fahmi karo ayay maahmaahdu keentaa. hadda tusaale ku dhaho waxaa la yidhi maradiisa banaankiisa mare, maradiisa geed ma qabsado. dee waxaad u malayn in loo jeedo maradaada inay geed qabsanin haddaad banaankaa marto, saas ma ah. yacni qofkan gardarro iyo xumaan iyo lexleexad lahayn asna laguma khaldamayo, saasaa laga wadaa. waxaa ka mid a tiraabta sheekooyin iyo dhacdooyin lasoo maray oo laga sheekeeyey, waa tiraab.
nuucidina loo sheekeeyo laakiin kala dil la sheekeynayo sheekadaas iyo hadalka iyo hasawahaasi waa tiraab. ta u dambaysa waxa weeye hadhxiraale. Hadhxiraalaha la sameynayo waa tiraab. waxay nooga dhigeen maaragtay su-aal. waxaad sheegtaa waxa cirka taar ku leh, dhulka taar ku leh, tagooga orgi leh, bal sheeg. waxaana odhan jiray dee waa qoraxda. qoraxda